dawladda hoose ee degmada Burco ayaa maanta ka bilowday jidadka waaweyn ee magaalada Burco dibudhis iyo dayactir aad u ballaaran maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo xogayaha dawladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur ayaa ka hadlay dayactirka iyo dib u habaynta ay ku sameynayaan wadooyinka halbowlo oo ah jidadka magaalada Burco waxaana sidoo kale maamulku sheegeen inay sii wadi doonaan isla markaana ay dayactiri doonaan guud ahaanba wado kasta oo ay arkaan in ay burbur iyo dayac ka muuqdo maanta waa 18 bishii koobaad 2018 mashaariic baan wadnay wada banayn iyo buuxbuuxinta wadooyinkii hore jajabay ilaahay subxaanahu wa ta'aala idankiisa waxaan doonaynaa in laga soo bilaabo wadada Berbera iyo wadada Laascaanood iyo kuwa magaalooyinka dhexdooda wadooyinkii hore ee burburay inaan haad dambe aan dusha ka wada saarno dhamaantood hadii Ilaahay ka dhigo wixii buuxbuuxin aqbalayna aan buuxbuuxino waxaan maanta ka hadlaynaa dadweynaha biyaha lagu shubayo laamiyada sidaa u galay in laga joojiyo cid allaale cidii maanta kadib lagu arko in biyo ay dusha kaga shubayso laamiga wala ganaaxi doona dadkana waxaan aad uga codsanaynaa nala shaqeeyaan waxaan waa hanti marka runtii ma aha bilow wadadani wadooyinkan kabkabka imika bishii sanadkii hore ee sanadkanba way socdeen waanu wadaynaa insha Allah tacaala ma aha wax ku kooban wadadan iyo kuwii hore sameeyay qaar kale oo badan waxay noogu jiraan inaanu qorshahooda imika noogu jiraan aan iyaga ka shaqeyno kabkabka wadooyinka Burco oo ah wadooyin waqtiyo hore la dhisay qaarkood waqtiyooyin qaar dhaxal la dhisay mid walba waxay u baahan tahay dayactir u baahanba waanu dayactireynaa waxaanu si hadaba dadweynaha u sheegaynaa oo aanu ku wacyigelinaynaa waxay sida qaalibka dadku caadaysteen inaan wadadii sida looga shaqeynayo ay subaxii biyo ku soo shubaan oo galabtii ku soo shubaan dambas dhaawac bay wadooyinka gaarsiinayaan ayaan taaganahay waxaan ku wadnaa dib u habayn baad aragtaan balaaran baan ku wadnaa gudidii fulinta iyo aniga iyo bulshada dhan baa hawsha wadna xilligan soo aragtaan waxaan u diyaarnahay inaanu ka shaqeyno wadooyinka magaalada wixii u baahan dib u habayn iyo wixii doonay dib loo sameeyaba diyaar baan u nahay Xabiib Ciga Xasan telefishinka Universal magaalada Burco